ardayda gobolka Banaadir waxa ay ku andacoonayaan in imtixaankooda si adag loo ilaaliyo halka gobolladana xariga loo dabciyo. Gobollada qaarna shahaadada la iska siiyo iyagoon soo gelin imtixaanka wasaaradda waxbarashada. Taasina ay keento in ardayda gobolka Banaadir ay buundo hoose keenaan kuwa gobolladana ay buundooyin sare helaan. wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa in ay hubiyaan in dhammaan ardaydu ay imtixaan isku mid ah soo galeen si isku mid ahna loo soo ilaaliyey. Ilaaliye, ma og tahay haddii aan imtixaanka si isku mid ah loo ilaalin, meelaha qaar la adkeeyo, meelaha qaarna la dabciyo, intaasi ay keeni karto in ardaygii dadaalayay maadada akhri jiray macallimiintiisa dhegaysan jiray in uu buundo yar keeno markii uu ku aado meeshii sida adag laysu ilaalinayay. Dhanka kale, ardaygii aan dadaali jirin, waxba aan qora jirin, waxba aan akhri jirin, macallimiintuna ay hawsha ka wadi kari way jireen, uu buundo sare keenayo markii uu ku aado meesha xarigga loo dabciyey ee aan sida adag laysu waardiyin. taasina waxa ay cadaalad darro ku tahay ardaygii dadaalayay. Markii xaafadda ay isugu yimaadeen labada arday, kii aan dadaali jirin waxa uu ku dacdacsanayaa midkii dadaali jiray. Waxa uu leeyahay, waad dhibtootay, waad dhafartay, haddana aniga ayaa kaa buundo badan.